shirweynaha samawada ee ay ka tashiga beesha Axmed Yunis oo muddo 4 maalmood ah ka socday deegaanka qolqol ee degmada Qulujeed ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay shirkani oo ay ka soo qayb galeen madax dhaqameedka aqoon-yahanka dhalinyarta beesha ayaa waxa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 8 qodob halkaas oo uu ka soo jeediyay Cabdiqani Jaamac Caleel. qodobka koowaad beeshu waxay ka shirtay midnimada wadajirka Axmed Yunis. qodobka labaad beeshu waxay xoojinaysaa walaalnimada wada dhalashada ay la leedahay beelaha Jibril Yunis. qodobka saddexaad beeshu waxay si buuxda u garab taagan tahay dadaal kasta oo hore loogu marinayo qarannimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Somaliland. beeshu waxay ugu baaqaysaa dhammaan beelaha Somaliland in ay hoos u dhigaan cunfiga qabyaaladeed kuna bedelaan horumarka iyo wadajirka. qodobka shanaad beeshu waxay xoojinaysaa wada noolaanshaha beelaha gadabuursi ee walaalahooda iyo beelaha guud ee Somaliland. qodobka lixaad beeshu waxay ugu baaqaysaa beelaha Somaliland inay soo celiyaan iskaa wax u qabsadii ay beeshan hormoodka ka ahayd kana soo bilowday deegaanada ay beeshu degto ay ka mid tahay degmada Boon. beeshuna waxay hormood ka noqon doontaa inay soo celiso nidaamkii iskaa wax u qabso. qodobka toddobaad beeshu wixii ay tabasho qabto waxay kala hadli doontaa ciddii ay khusayso kana sugi doontaa jawaab. qodobka sideedaad beeshu waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka Somaliland inay garab istaagaan walaalahooda ay saameeyeen dhibaatooyinka abaaruhu waxayna ballan qaadaysaa beeshu inay gurmadka hormood ka noqoto. intaasi kadibna waxa shirweynahani si rasmi ah u soo xidhay suldaanka guud ee beesha Axmed Yunis Suldaan Xasan Xadi Baade waxa uu ku soo afmeeray dardaaran la xiriira qodobada ka soo baxay shirka iyo duco lagu soo gunaanaday 4 maalmood ee la fadhiyay qolqol. dadweynaha halkan isugu yimiday cid walba oo reer Axmeda hadday dibadda tahay hadday awdal tahay Boorama hadday Jabuuti tahay hadday Xamar tahay hadday kililka shanaad tahay hadday buur iyo bannaan tahay hadday gobol iyo tuulo tahay mid walba waxaan ku salaamayaa halkuu joogo iyaa ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ummadda Somaliland meel waliba meeshuu joogaan ku salaamayaa mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidii loogu talagalay ayuu shirkanina u qabsoomay aan haddaado ana kula ducaysanay qodobadii ka soo baxayna waa kuwa Cabdiqani inoo akhri waana la isku raacsan yahay in sidaa ku dhaqanno ummadana kula dhaqanno oo sheegay Cabdiqani waxa ku baaqaya oo u soo jeedinaynaa Jibril Yunis ama Yunis Cismaanba ku horeysi Jibril Yunis in sida halka reer Axmed isugu yimiday oo isugu yimaado danihiisa ka tashado wadajirkiisa ka tashado mustaqbalkiisa ka tashado meel isugu yimaado halka ugu munaasibsan ee la isla doorto mar dhow haddii Ilaahay yiraahdo ay isugu yimaadaan Jibril Yunis sidaa isku kaashado malihiisa iyo adeelada mustaqbalkiisa iyo horumarkiisa haddii hadalado iskaa wax u qabsana wax walba waa ku qabsan karna halkii ay ka soo bilaabtay waxa Boon kii sameeyay waxa uu Cismaan waa bari buu qoday boor buu ka waraabinayay kolku boon buu ka waraabinayay wuxuu sameeyay ninkaasi oo hadalado uu ku taliyay inuu aadaanta ka qoro qori carayaal sida qasamada uu sameeyay aanka ilaa Boon oo inta iska gaarsiyo Boon halka kaga waraabiyo inta hadheena waxa laga sugayaa rooble
xasan wacays waa beri inuu halkii cusmaan ka bilaabay isaguna ka bilaabo halkaa intii leeg soo gaarsiiyo taana intaasaan ka codsanayna wax tafaraaruq la yidhaahdo iyo wax talaxumo la yidhaahdo iyo wax afmal la yidhaahdo midna aanay jirin baan ku talinaynaa shirkana ka soo baxday tolkiina uu kula dhaqmo hadday jibriil yooris tahay hadday dalaal makaahil hadday muuse deri tahay hadday makaahil tahay hadday makadoor tahay hadday samaroon tahay hadday gadabuursi tahay ina wanaag iyo af soomaali fiican iyo xisaabta khayr leh iyo wada shaqayn iyo horumar kula dhaqanno ballan baan ku qaadaynaa shirkayna ka soo baxday ummaduna sidaa ha nagu ogaato dowladduna sidaa ha nagu ogaato wax alla wixii nagaga maqan aan tabanaynana horaan u sheegno miiska dushiisa ayaan ku garanaynaa mustaqbalkeeda ku doonaynaa dowladda ku weydiisanaynaa sidaasaan leenahay sidaasuu inoogu xuleeyahay ilaahay idamkii wixii cusran allah caafiyo wixii caafimaad qaba allah u siyaadi wixii uma doonaya allah siiyo wixii guur doonaya rag iyo dumar habliyaynamo allah siiyo ninba muraadkiina meeshuu jooga allah ku siiyo muwaafaqadana allah noo wanaaji samada ilaahu noo irmaane ilaahay hadduu idhaahdo sidaana ummaddu ha nagu ogaato ilaahu naga aqbal ilaahu noo ajiib samada noo irmaane abaaraha naga saar arrimaha noo sahal muwaafaqadii haddii malaabuurniga lagu soo hagaaji ilaahu gadabuursida isku soo hadee isku soo hanuuni ilaahu naga aqbal اللهم صل على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. إبراهيم صحفي بولشتي في بورما.